ويخضع walaalkay cali soo dhawow suraalku ka dhacay maxaa dhahay suulaan ma qoys البروس روح يوم العربية لا حبا اسك صدر كشتك وراي ولا تلك واحد نقدر انه حتى اذا كبلتك انا ما حدا تهلا بس ولا اسكدر حرناو walaal runta haddaan kuu sheego dadka carabkooda marna kama amahalis marka aad buwanta waxay ku leeyihiin oraa sharqu balaay 80 kiilo wey 160 kiilo wey yah mad garatay marka waxaan ku leeyahay waxba isku mashquulin رمي برو كو كفت معي كان waxaan ka soo qaaday xagaas barandada walaal horta kafta ka noo dambeeya arrin baan soo xasuustay iyo maanta khudbadii jimcaha waxaan ku arkay adigoo sidaan u fadhiya ma ogtahay walaal nabiga sallallahu alayhi wasallam fadhiga noocaan oo sidaan loo fariisto waa uu nahiyay وني برو انا fadhigaas waan jeclahay hadii ana saas u fariisan khudbada ma dhageysan karo walaal hadii aad jeceshahay markasta yani jaceylkaaga waxa ka weyn amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallamna waa uu nahiyay fadhiga noocaan naha nabiyu صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن الاحتباء يوم الجمعة إن سيدان الله فريستو أما سيدان هاي برو ان شاء الله هذيك تبقى مفلسانية لكن ما قرنا سببته النبي صلى الله عليه وسلم ونهي ولا الهرطة الصوابته الله أعلم لكن فرق نوعانا وحو كادقيا إنا يهردكو قبطو إنا تكو عاجز سيدو كلان حتى وحا فضل inaad dhuustid oo kale vidaas been ma aha because ana marka xataa soo fadhiyo waa qabataa marnaba walaalkay isku dabal inaad fadhiga noocan ka digtoonaatid sidoo kalena walaalaha asxaabta inta taqaanid aad ku baraarujid aad u sheegtid in fadhiga noocan uu nahiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ayna u fariisan sidaan marka ay khudbada jimcaha ay dhigaysanayaan